dhaqaatiirta isbitaalada iyo marti sharafta kala waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii anaga farxad ay noo tahay anaga waxaan matalayaa caaway macadka Soomaaliyeed ee la yiraahdo macadka cilmi baarista iyo horumarinta Soomaaliyeed ama SORDI isla markaana wakiilka ah mashruucaas la yiraahdo iskaashiga adeegyada gaarka loo leeyahay caafimaadka Soomaaliyeed ama Private Sector Partnership for Health oo ay maalgelisay hay'adda iskaashiga caalamiga ee dawladda Switzerland ama SDC isla markaana qayb ka yihiin hay'adda la yiraahdo DT Global Mareykanka fadhigeeda Nairobi iyo hay'adda kale Swiss Tropical and Public Health oo ku taala waddanka Switzerland. waddankeena waa ogtihiin waqti dheer ayuu ka soo kabanayay dhibaatooyinkaas ay ka mid yihiin kuwa caafimaadka marka dad badan oo ama dhaqaatiir ama howlo caafimaadka mashquul ku ah ama wasaaradda caafimaadka oo nagala jooga caawa agaasimaha guud Dr. Guuleed waxaa mashquul ku nahay arrimahaas caafimaadka magaalada Muqdisho haddii aad soo qaadato waxaa arkaysaa isbitaalada ku yaala ama xarumaha caafimaad ee ku yaala inay 1000 kor u dhaafayaan laga yaabo 1500 meelaha inay tahay markii ugu dambeysay haddii aad ka bilowdo shaybaar yar ama farmashi yar oo xaafad ku dhex yaala ilaa isbitaalada waaweyn aad timaado waxaan leeyahay anaga haddii aan nahay macadka farxad weyn ay noo tahay mashruucan cilmi baaristiisa aan wadnay muddo 5 sanadooda oo daraasado badan aan ka sameynay in wajigii labaad uu gudbaayo oo waliba maaragtay si taabanaya bulshada Soomaaliyeed sida u dhisan tahay haddii aad tagto wadamada kale waxaa la yaabaa qoyska hal ama laba qof kaliya inay ka soo qaadaan laakiin halkan waxaa ku qornayd 7 qof inuu yahay qoyska Soomaalida oo ogna average-kiisa 5 caruur iyo hooyo abada isku darto waa 7 marka waxaa moodaa mashruuc laga soo shaqeeyay daraasad laga sameeyay oo ka tarjumaya dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee leedahay inuu yahay mashruucan taariikh ahaan waa kii ugu horeeyay oo maaragtay waddanka ka yargala oo loogu talagalay suuqa guud sida daatay Dr. Shukri noo sheegaysay ama mass market-ka wax la yiraahdo hadda waxa leeyahay caawinteena fadhisa haddii aan isweydiino wax caymis naga haystay inuu yar yahay markaan daraasadda sameeyno waxaan ogaanaa 100% inay ku jiraan health insurance halkaasna yihiin dadku shaqeeya hay'adaha caalamiga UN-ka ama international NGOs oo ayagu qasab ku ah markay waddanka imaanayaan lagu qasbaayo la leeyahay qaata insurance marka mar labaad waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa Baraka Insurance oo hay'adda koowaad oo nala soo xiriirtay kana miro dhashay waxaan u rajeynayaa guul aad iyo aad u weyn annagana mar walba garabkoodan taaganahay haddii aan nahay BSBH waan ka mahad celinayaa fursadda la siiyay inaan warbixinta kooban halkaan ka jeedo waan idin salaamayaa mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh